maayarka caasimadda waddanka Jabuuti ee Jabuuti ayaa waxa ay sheegtay inay wax badan ka qabatay nadaafadda iyo bilicda magaalada Jabuuti. Faadumo Cawaale Cismaan oo sanadkii 2017 noqotay haweeneydii ugu horeysay ee maayarka noqotay magaalada Jabuuti ayaa markii ay waday ololaha doorashada waxa inta badan dadka magaaladaasi ay su'aal geliyeen kartideeda shaqo iyo in hawshaas ay ka soo bixi karto. maayarka ayaa sheegay inay farxad u tahay dumarka waddanka Jabuuti oo markii ugu horeysay haweeney u doortay maayar, waxaana ay intaasi ku dartay in haweenku ay qayb weyn ka qaateen horumarka dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. waxaana ay tiri shicibka waddanka Jabuuti way la yaabeen markii aan soo hor istaagay sababtoo ah ragga oo kaliya ayaa markii hore soo hor istaagi jiray. mar la weydiiyay maayarka sida ay u aragto magaca loogu yeedho ee duqda caasimadda ayaa Faadumo Cawaale Cismaan waxa ay sheegtay inay wax iska caadi ah tahay haddii loogu yeedho duqda caasimadda. maayarka magaalada Jabuuti waxa ay sheegtay in ballamihii xilligii doorashada ay wax badan ka qabatay iyada oo sheegtay inay bilicda magaalada ka dhigeen mid soo jiidata bulshada qaybaheeda kala duwan isla markaana ay dhir ku beereen. waxaana dhanka kale ay sheegtay inay isbedel ku sameysay dhanka habkii horumarinta nadaafadda iyo deegaanka iyada oo carabaabtay inay iska kaashadaan wasaaradaha ay khusayso. Faadumo Cawaale waxa ay ugu baaqday bulshada magaalada Jabuuti inay maalmaha Jimcaha ka qayb qaataan ololaha nadaafadda xaafadaha magaalada Jabuuti. Faadumo ayaa dhowaan martigelisay shirkii iskaashiga maayarada caasimadaha Islaamka oo Jabuuti ka dhacay. Siciid, Axmed, Tamreyse, wararka telefishanka caalamiga ah ee Star.